بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي kusoo dhawaada janalka bro ICT IT waa tii casharadii awadnay halkaas aan kasii wadi doonaa dabcan waxaa isleedihiin maanta muuqaaladii hore uu ka duwan yahay muuqaalka laakiin casharka ayaan sii wadi doonaa waa tii casharkii shalay aan Huberberg ku shubnay iyo maaragtay qaabka loogu soo shubo ayaan baranay hadda waxaan baran doonaa hadduu ilaalado qaabka loo isticmaalo casharadii aan soo dhaafnay waa tii serverka qaabka shirkadda loogu sameynayay sidoo kale ayaan ku sameyn doonaa Huberberg dabcan dadka ku cusub waxaan rajeynayaa casharadii hore inay fiiriyaan dadka kalena casharka way la socdaan maaragtay way fahmi karaan qaabka loogu sameeyo maaragtay shirkadda iyo adeegeeda Huberberg ayaan isticmaalkiisa bilaabi doonaa yaan hadalka idinku badin waa inuu practicada hadda aan toos u galno mar labaad kusoo dhawaada si toos ay u gali doonaa maaragtay practicada hadduu ilaado waxay noo kacsan server manager-ka saa ujeedaan Huberberg aan casharkii hore aan soo dejinay waa kan laakiin qaabka loo isticmaalo ayaan geli doonaa qaabka loo isticmaalo ayaan geli doonaa halkaas tools ayaad ku dhufin doontaa kadibna waxaa geli doontaa Huberberg manager halkaas ma ka kicin kartid waa inaad halkan ka kicisaa marka Huberberg manager ayaa tegaysaa kadibna waxaa noo soo baxaya Huberberg manager wuxuu la mid yahay serverka inta hore maaragtay server manager-ka uu la mid yahay asigana marka Huberberg serverka dadkii hore casharkii la socday waxaan sameyn jirnay network adapter ayaan kusoo xiri jirnay sidoo kale kan waxaad ku xiraysaa sidoo kale ayaad ku xiri doontaa halkaas waxaad tegaysaa virtual switch manager ayaad tegaysaa kadibna create virtual switch ayaad tegi doontaa oo maaragtay adapterkii ayaad ku daraysaa ayaad ku xiraysaa kadibna halkaas ayaad waxaad ku qori doontaa connection ama connect ayaad ku qoraysaa halkaas wax kale aad ka sameyn doonto malahan waa okay allow management operating system to share network adapter okay ku ahaado kadibna private ayaa ka dhigi doontaa halkan private ayaad ka dooranaysaa si toos ayuu private u noqdo ujeedaan private connection ayuu noqday kadibna apply ayaa leedahay kadibna waa noo sameysnay connection-keena okay ayaan leenahay waan ka soconaynaa kadib waxaan tegi doonaa marka waxaan kicin doonaa Huberberg-na si oo noogu shubo serverka laakiin waxaan sameyn doonaa ka hor waa in maaragtay CD-ga aan kor soo saarno sida loo soo saaro waxaan tegi doonaa setting kadibna VMware-ka aan tegi doonaa hadda CD-ga markaan ku shubeyno kan waa inaan kor soo saarno marka halkan ayaan tegaynaa up kor ayuu soo korayaa si toos ayuu ugu shubi doonaa marka serverka marka waxaan kicin doonaa hadduu ilaado Huberberg-na oo serverka inuu nagu shubo maadaama aan soo dhignay CD-gii serverka connect ayaan dhihi doonaa kadibna maaragtay marmar halkan ma soo qabsanayo waxaad tegaysaa control alt del oo macnaa mar labaad ayaad fiirinaysaa marka hadda si toos ugu shubayo soo jeed marka enter ayaa leedahay inkii Huberberg-na ayuu qabsaday kadibna serverka ayuu soo kicin doonaa in luqadda sida English darabto luqadda arabta ka dhigin kartaa next kadibna install ayaan dhihi doonaa marka Huberberg-na wuxuu hadda server ayaan ku shubaynaa halkan productkii hadda haysto waad gelinaysaa laakiin we don't have ayaan leenahay productkii ma baahno marka uu ku shaqeynaa markas server markaa ku shubayso waa in kan standard desktop experience inaa ku shubto ama data center maaragtay desktop experience labadaas mid oo inaa ku shubtaa kuwa standardka oo halkan kan iyo kan isticmaal labadan oo maaragtay kan ama kan
kadib next, kadibna waa aqbalay next. Custom ayaan ka dhigi doonaa. Waa ujeedaan hadiskiisi toos ayuu nagu shubay marka. Okay aan leedahay, kadibna sidii caadiga oo windowda ugu shubaysa ayaa ugu shubaysaa, ama serverada saa ugu shubi jirta ugu shubaysaa. Okay, ilaa finish uu ka imaado oo boqolkiiba boqol oo meeshaan tago, kadibna maaragtay halkaas ayaan kasii wadi doonaa. Steedyadaas waa qofkas uu fahmaya kuley. Okay, waqti uu qaadanaa waxyar. Okay, waxyar ka dhiman ugu dhameyn doonaa, kadibna maaragtay si toos ayuu ugu shubi doonaa serverkeeni. 96 noqso waa taa halkaas nagu shubay marka. Featureskii wixii dhan, updatekii inta noo dhiman bis, kadibna wuu ku shubi doonaa. Okay, waxaan samaysan doonaa passwordkii. Administratorka bas u sameynay, kadibna finish ayaa dhihin doonaa, kadibna si toos ayuu usoo kacayaa. Serverka hadda waan ku shubnay. Administratorka passwordkiisa ayaan dhigin doonaa. waa ka serverka toos noogu shubay sida maaragtay Windows serverkii aan caadi isticmaalayna ayaan Hyper-V ka dhignay oo maaragtay Hyper-V ay ku dhex shubnay. Hyper-V waa ujeedaan oo numberkiis yahay, waxaa maaragtay noogu jira Windows server ayaan ku shubnay. marka server managerka ayaa soo kici doona. marka kaas Hyper-V ayaan ku shubnay oo server ayaan u bixinaynaa. Windows waxaan u bixinaynaa Windows server 01. window kale inaan kusoo shuban rabay, laakiin waqtiga ma deeqaayo, maaragtay waqti naguma filna, video waa dheeraanaya. dabcan halkaas ayaan ku joojinaynaa, waxaan kasii wadi doonaa insha Allah berito. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه 10 dambe.